waxyaabaha soonku oo u leeyahay caafimaadka waxaa ka mid ah wadnaha ayaa ka mid ah dadka qaba xanuunada ku dhaca xiidada wadnaha oo qaarkood laga yaabo inay xiran yihiin ama ay ku dhow yihiin inay xiran yihiin dadka dhiigkarka qaba si guud ayuu mataqaanaa ramadaanku faa'iido ugu yahay maadaama inta badan dhiigkarka oo kale haddii aan gudagalno aan ka hadlo suu faa'iido ugu yahay dhiigkarka inta badan waxaa la sheegaa inuu yahay imaashihiisu ay ku xiran tahay ama inuu yimaado ay tahay xididada loo yaqaano mataqaanaa halbowlayaasha ee dhiigga ka qaada wadnaha oo dhuminkoodii ama dhumucdii dhexda ay yaraato oo haddii shalay ay weynaadeen ay hadda soo yaraadaan kadibna si xooliya wadnuhu uu dhiigga uu tuuro markaas waxaa dhacda markaa in dufan badan isku sii dhiso xiidadii oo kadibna xiidadii qaar kamid laga yaabo inay xirmaan waxa la yidhaahdo atherosclerotic plaque oo kale ama atherosclerosis ku samaysmo kadibna dufankii tirada badnaa qaarkood laga yaabo in ilaa wadnaha ay saameeyaan xiidadii xirmaan sida awgeed maadaama qofka uu sooman yahay waxaa dhacaya dufankaas tirada badan isku dhisaya derbiyada wadnaha kale iyo qofkii inuu ka caafimaado xiidadii wadnaha kale mataqaana ay furmaan ama ay mataqaana dufankii tirada badnaa ay aadi lahaa u yaraado sidaas si lamid ah xiidada oo aada maskaxda carotid artery-ga ayagana mataqaana haddii dufan isku dhisi lahaa qofku wuu ka badbaadayaa maadaama marka hore xiidadu ay aruursanayeen